jaamac waa gabar Soomaaliyeed oo dhawaan ka qayb gashay tartanka quruxda dumarka dalkan Britain ee loo yaqaan Miss Universe Great Britain waxaana ay ka mid tahay 40 gabdhood oo loo soo xushay inay tartankan ka qayb galaan waa gabadhii ugu horeysay oo muslim ah oo tartankan uga qayb gashay dharka loo yaqaan kaftan ee laga xidho waqooyiga Afrika wuxuuna aad ugu dhow yahay dirac Soomaaliga dad badan waxay yidhiin fariidad baa tahay ileen muslimyaar hore way galeen laakiin qaar way xidheen bikiniga oo la rabay qaarna may xidhan laakiin may ku jirin competitionka maaha probably wax ku sii jireen Muna oo diiday inay tartanka uga qayb gasho waxa loo yaqaan bikini oo inta badan muujinaya cawrada dumarka ayaa waxa ay ka hadlaysaa wixii ku kallifay iyo haddii dadka qaarkii ay ku dhaliileen tartankan in ay ka qayb gasho sababkeedu waxay ahayd marka tagay Soomaaliya Somaliland baa tagay meel Hargeysa la yiraahdo and waxa joogay 5 bilood iyo badh laakiin wadanka meel baran baa tagay Sheekh Berbera waxa igu kalifay waxa soo arkay soo abaaraha dad baran oo dhaawacmayay oo dib loo keenay natural disasterka waxa kale arkay educationka way fiican tahay laakiin more international support baan u baahan tahay waxa rabayna dad oo ila mid oo dadka caawiya oo humanitarian aid sameeya ina dhex galo inkastoo gabadhan ay ku guul daraysatay tartanka ayaa haddana waxa ay ii sheegtay inay faraxsan tahay hooyada waxay ku soo korisayna fahmada imika haddana wax ku qorneen ima lagu talagalin ma lihid inanta qaaday way qurux badan tahay waa inan intelligent and xaq baan u lahayd laakiin ina sameeyo waxa aanu sameeyay I'm very anaas ka faraxsan dad baran baa yidhi baati bay xidhan tahay mise madirac baa dad baran ma garanaya laakiin waa kaftanna waxay tahay waa meel Morocco maybe Egyptian laakiin haddaad material ka taabatid waa oran kartaa inay dirac tahay ima malabati laakiin dad badan baa sala murmaya social media oo malawa waxa laakiin waa kaftan gabadhan ayaa waxa ay timid dalkan Britain iyadoo biljir ah waxa hadda ay ii sheegtay inay doonayso sidii ay u caawin lahayd dadkeeda Soomaaliyeed waxyaabaha ay niyadda ku hayso waxa ka mid ah sidii looga wacyi gelin lahaa dhalinyarada Soomaalida tahriibka ideally waxa rabaa ina attention adduunyada inanu keeno Somalidan waxa rabaa in education ka sii fiicnaysiino so that yaalka naga dambeeya chance bay haystaan a better future ideally interest-keedu waxay noqotay illegal migration so waxa doonayna introduce gareeyo safe practice of migration and ina dadka nu sii sheego that waa dangerous dadkan oo raba ina tahriibaan dadkan oo raba ina noloshooda risk galiyaan waxa raba ina kasii fakaraan waa dhalinyaro waa dad extremely young and waxa doonayna understand gareeyaan that future way haystaan but maaha the right decision in terms of dad dangerous oo ka faa'iideysanaya oo manipulate garanaya maaha ina gacanta nu galaan